shala subax markay 2 saac ahayd meelahaas ayaa waxaan kula kulmay nin dhibana ah magaalada Muqdisho xaafadda Hodan ninkaasi qaraxyadii magaalada ka dhacayay ayuu ku naafoobay labada lugood mid baa gooday midna waa burburtay muddo sanad ka badan baa ka soo wareegtay mana ayna raysan jeengad yar buu degan yahay 12 ilmood oo u dhalay oo yar ah oo mid shaqo tagi uusan ku jirin buu meesha ku haystaa nin fara banaan buu ahaa hooyadiis oo indhala ayaa u nool oo sugaysa asaga habaryartiisoo xawd ah oo aan awlaad lahayn wuu hayaa walaa la dhashay male mid wax haystay mid aan waxba haysan male wiil uu dhalo u shaqo tagana male 12 ilmood baana dul dhoobnaa oo yiciis ah qaar badan oo kamid ah meesha wala kula kulan ninka dhibanaha ah oo sariirta saaran xaalad adag ayuu ku sugan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ina siiyay haddaanan masaakiinta aanan ugu naxariisan annagana ilaahay noo naxariisan maayo xoolaha naloo dhiibay waxaana la kugu dhiibay linafci cibaad adoomada dhiban inaan anfacno haddaan kaga bakhiilno annagana ilaahay waa naga wareejin karaa kuwaas iyo kuwa lamid waa ku wareejin karaa miskiinkaas aan u gurmano telefoonkiisa masaajidku ku dhagan yahay meelaha darbiyada iyo lagu dhajiyay dhibanaha ayaa ku qoran lambar toos lagala hadli karo weeye qofkii raba uu kala hadli karo midku asagu haysto wixii la tuurayo asaga ha loogu tuuro qof aad iyo aad u dhiban weeye nin intaas oo ilmood ay sugayaan waalidna sugahayo labada lugood midna gooday midna ay tahay mid dhaawaca hal sano iyo barba ka soo wareegtay way duubanta welina ma raysan intaas oo isbitaal baa la geeyay la mariyay waxa weeyaan waxa way ka qaban waayeen halkaas dul saaray marka aynu u gurmana barakallahu fiikum sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rabbana alaykum rahmatullahi wa barakatuh waxaan ugu mahadcelinayaa Sheikh Maxamed iyo macna Sheikh Maxamed Anshir iyo jimcadiisa wasaaqi soo booday wixii waraan sheegi lahaana Sheikh Maxamed aan sheegay waan sax war ku sheegayo marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah cidii awoodi karta inay wax u caawiso inay soo caawiyo alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh